waxay la tahay dadka Soomaaliyeed barnaamijkan waa wacyigelin oo shaqada aan hayno ay qayb ka tahay DJ Subeer adiga iyo teamkaaga waxa tiin samafalayaal oo waxa tahay kuwa hadda aniga aan hayay lacaga oo u soo diray adoo magaalada jooga ay lacag laga keenay Yurub aan gaarsiinayna dabcan Soomaalida waxay u baahan tahay inay iscaawido waxaan u baahanahay in anagu aan istaakulayno shaqooyinka aan hayno waa shaqooyin adag ودريم كرتا ودن بربري دتكيسو إسدلين كلا تجين هدنا دب لو يقلالي مرحلة ذاك لو شقيناي طبعا ذاك الدب كشقيستان وأيجا شقيستان ضدنا ذاك يشقيان وودتك حلقا أو كلا أسجيدا فلنتير كشقيناي بل يرد الصوماليات طبعا أنا وحنا هوين وحنا هاي بالمجيد وحنا كواد جلعسن مروا البابا وحن دب جلعنا نلشي ورقان كلمة waxay noo muuqanaya marxaladii adkayd ee qaraareyd maaragtay burburkii soddonka sano aan ka dhaxalnay nabaday inaan aadno maaragtay dabcan in badan oo Yurub hadda joogto oo maaragtay anigu reer London aan ahay ilaa markay ka sheekeynaysan waan dareemayay dabcan markaa armaanta iyo abuukar maaragtay qaadka inuu joojiyo oo dabcan anigu waxaan deganaa magaalada East London oo ay aad u adkayd oo runtii dadka ugu badan ee waliba simaanada ay ku noolaayeen marka waxaan aaminsanahay inta badan dadku waxay dhihi jireen waa Rio oo ma joojin karo laakiin anu waxaan ahaa dadka supportiga oo ah maadaama family problem badan aan ogaa habkaan u xalinayno oo qaadka ugu sababay marka abuukar waa ku mahadsan yahay waxaan rajaynayaa one day Soomaaliya inuu ku guuleysto lacagta jaadkan Nairobi uu loo sii wado inaan ku bedelano wax badan oo dalkeena aan dib ugu qabsano oo beeraha aan ilaano bal beeraha salarka iyo qudaarta iyo tufaax iyo apple iyo waxyaabaha saxna ragaan leenahay ku bedesho abuukar waxaan noolaadan leeyahay marka u soo laabto waxa jira wax la yiraahdo hadda xanuun adduunyada saameeyo COVID-19 dabcan nolosha magaalada markaa fiirisid haween ahaan gabdhihii jaadka iibinayay gabdhihii hay wareerinta iibinayay gabdhihii maxaan ku raadayay jaariyadaha ahaa gabdhihii shaaha karinayay hooyadii kowda habeenimo caanaha 5 liitar intay la fadhaaw kowda la fadhiday intaba saameyn ku samaysay waa dareen kartaa marka hooyada Soomaaliyeed akoon male akoonkeen waa ubadkeen dhaqaale meel gaar ma yaalaan assurance ay ku jirto male oo markii dab haduu kaco ay ka gubato hantida loo soo celin maayo oo waayadii ayaa waxay noqonay qof daymaysan oo marka qaarkood ayagoo depression oo waxaad arkaysaa markii dhaqaalihii lacagtii dharka intay dad siiso amaaydo lacagta ka soo bixi weyda caqabaday la kulmaan anigu marka rag iyo dumarba shaqooyinka aan qabto oo adigu aan marqaatiga ka tahay waa shaqooyin aad u adag oo aad u xanuun badan walow marka qaarkood aan israado ma iska resign garaydaa ma iskaga tagtaa laakiin haddana waxaan isweydiiyaa dhexdayda ayaa waxaa jooga juriyaal badan oo ijaad garaynayo ileh may waa markuu ku dhufto ugu yiraahdo mid dhaqaaq midna uu ii diidaa waayo qalbiga hooyada Soomaaliyeed waa mid naxariis ka samaysan dumarka Soomaaliyeed dabcan aadan u daalanahay xilligii nasashada xilligii abaalgudka xilligii maaragtay waxaan ku jirnaa anagu aan guryaheena ku noolaan lahayn laakiin ma aysan dhicin barakac iyo dhibaato ay nagu dhacay caruuraha marka u soo laabto hooyadu marxaladaas ay ku jirtaa waxaan arkay caruuro hooyo inta ilmihii waxay siisay markay weyd isku dayday inay tawleedka ku rido masqusha ilmo yar oo 2 bilood jira waxyaabihii ugu xanuunka badnaa waxaa iigu yaab badnaa ayana aabe ilmihii markuu wuxuu sii garan waayay ilmihii ugu yaraa intuu qaada badda inuu damcayn u raaciyo maantay xarunta ku soo booqanuu joogaa waa ilmaha duu ugu bato 5 years old marka marxaladda duruufta qofka markaan waxba haysanin ilaahay dadka waxba uma waayin ilaahay dadkana waxba maaragtay waan wadaawanaya waxa u baahan inaan wax hoos u fiirino oo inta badan anigu aan dul istaaga waxay tahay agoomaha hooyada gablanka ah hooyada dariiqa xaqaysa iyo kuwa maaragtay danaha maaragtay markaa fiirisid aan dabkaba shidan karin waxa inta badan la focus gareeyaa barakacayaasha wax la yiraahdo oo ah dadka banaanka geedaha hoostooda hurda ayaguna wadankoodii magaaladoodii intay yimaadeen caasimadoodii guryahoodii ka soo cararay oo colaadaha iyo maaragtay masiibooyinka dabiiciga ah roobabka iyo waxaan maaragtay
la dagaalanka argagixisadii al-shabaabkii deegaanada laga haysto waxay imaanayaan caasimadii waayo caasimadu waa hooyadaa lagu soo hiranaya marka aniga culayska ina haysto wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed oo aan iska warqabin inta badan oo marka qaarkood waxaad arkaysaa qof gaarigiisa mukayfka maaragtay intuu heesiisa maaragtay sameecadaha u dheeraysto iska dhaclaysanay maba garanaayaba laakiin anigu masalan soo qaato kuwaas waxaan ku yiri xaramkaba waxa jooga dad badan oo aan kabcada ku dukanin laakiin Sacuudiga joogo islaama kuwaas waxaan leenahay way qalbi adeegiino ilaahay aan ka soo qaadaynin maalmihii hadda bisha Ramadaan waxaan ku dhex jirnay COVID-19 iyo bishii Ramadaan iyo dadka aan ka hadlaynin annaga haweenahan COVID-19 ka maskan soo saarnay maskan hadda aad jeedaan oo aan ugu talagalnay inaan u qaybino caruuraha hooyooyinka iyo dadka masaakiinta ah haweenka sameeyay annaga sameeynay waxaan ugu talagalnay in gabdhaha shaqaabuur aan u sameeyno kadibna gabadhu ay maska ayadu ay xirato laasigaas lagu sameeynayaa wadu jeedaa gabadha feereynaysa mid ayada tolaysa mid u jarjaraysa waan diyaarinaynaa dabcan waa isku tashi wax kala ma aha markii aan aragnay China laga keeno Turkiga laga keeno waan fikirnay marka haweenku mar walba hooyadu waa hal abuur hooyadu waa hanti dhowr hooyadu waa xeer ilaaliye hooyadu waa garsoorka cadaaladda ayada ah hooyada ayada macallina hooyada ayada abaabiye ah hooyada ayada hooyga naxariista ah waxaan aad ii soo jiitay barnaamijka wuxuu ku bilaabanayaa hooyo dabcan hooyo mar walba markaan eegay xayisiintii aan dib u eegay ilaa maanta in badan aan kilibka ayaan dib ugu laalaabtay oon siri DJ Super ma qalbigaagu ka hadlaaya malaha oo hooyo oo maaragtay haddadan aad xiran tahay weliba hooyo waa wax aad aan ugu faraxsanahay inta i daawanaysa kumanaanka kuna waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in la isku naxariisto dawladeenu waxay u baahan tahay in dadku ay fahmaan in ayagu dawladdu waa number la tirin karo haday noqoto baarlamaan haday noqoto wasiiro haday noqoto maamul gobol iyo state-yada laakiin 10 million people oo dadka Soomaaliyeed lagu qiyaaso oo haddana isku damqanaya oo hadduu dhibco isu istaagaya oo aan kala haraynin haddana kala jeeda taas waxa looga bixi karaa barnaamijyada DJ Super oo wado oo aad ku qiimaha badan marka maamo anu waxaan fahamsanahay taarabe hooyo inaan ku weydiiyo oo su'aala qurba joogta anagu ka mid nahay xagga waxa ku jira oo aan arkaa dadkii mas'uuliyiinta ahaa iyo dadkii magac ku lahaa bulshada Soomaalida oo shanta qaaradood adduunka ku sugan asa qurba joog ahaan maanta dadka magac leh oo inuu kula daawanaya maxaad kula tarin lahayd maxaanu qaban karnaa oo ciyaalka ka jigjiga jooga ka Hargeysa jooga ka Xamar jooga ka Garowe jooga ka Gaarisa jooga maxaan u qaban karnaa iyo fariin maxaa oran lahayd adduunka waxyaabaha in la siiyo oo annaga aan deeq bixiyaasha ka sugno waa fundraising waa contribution annagu aan isku darno dabcan waxaan ku talin lahaa in DJ Super waa samafale qof walba oo Soomaali ah oo wax bixinaya in uu wax sadaqaysto oo ah sadaqa jaariya taas oo loo bixinayo ilaahay dartii dabcan ilma caruuro agoon ah ama darbi jiifa oo aan aabiyo midna lahayn haddaad ciidsiiso $10 dad diibto waa lacag £1 dad diibto waa lacag haddaad diibto $100 waa lacag wixii ilaahay ka soo qaado $30 diib whatever waxaad awoodaba waxaan qabaa marka in lacagtaas ay dadku ururiyaan maaragtay lagu soo dhiibo adigana aad soo gaarsiisaan kuwa ugu mudan bishii waxa inoo dhiman saddex isha ka dhiman dabcan waxaan aaminsanahay aniga aragtidayda anigoo ah qurba joog laftirkayga oo asalba ka imid oo aan isleeyahay waxaan u ahay representative oo magaalada Muqdisho ayaan joogaa waan ka damqadaa cidda qurba joogta marka qaarkood marka la dhaliilaayo still marka anu wali qurba joogaanahay waayo dadku waxay ku leeyihiin qurba joogtu waa sidan waxay aaminsan yihiin dad baahan oo yimid inaan nahay laakiin ma oga inaan nolol ka soo tagnay aanu nimid inaan sacrifice gareyno waan ku dhimi karnaa waan ku dhaawacmi karnaa intee inooga dhimatay oo maaragtay engineer yariiso uu ka mid ahaa Allah u naxariisto duqi magaalada Muqdisho cawl daahir ka mid ahaa maxaan ku dhahaa ii sheeg dad badan oo bulshada aad u qiimo ugu lahaa ayaan ku weynay waxaan marka aan leeyahay hal la dhiibo lacagta aan istaakulayno dadka qurba joogtu waa kuwa dalka samata bixiyay
waa kuwa dalka wax badan ku soo celiyey waa kuwa maalin walba u taagan inay dadkooda u adeegaan marka waa laba qaybood qof uu yimaadaa xeebta liigu tagaa markuu enjoy gareeyo maalmo kadib inta pocket money-ga wato markuu xoogaa isticmaalo dabadeedna wuu flight gareeyaa dib ugu laabtaa meesha ka yimid laakiin sida DJ Subero marna bajaaj raacaya marna qof le war aawo gudoomiye Zaynab war Jawaar xagee joogtaa waxaad arkaysaa iyo biyo cabitaankii macaanada soo kac oo kale lagu fikro dadkeen baaka inaan annagu iscaawino oo isku tashano waad aragta dalka isxilqaan hadda magaalada Muqdisho markaa fiiriyo magaalooyinka markaad aragto dadka Soomaaliyeed ma way siqanaan cid aan cid garanayn male marka inta badan hadday joogto Jigjiga hadday joogto Hargeysa hadday joogto Djibouti iyo hadday joogto Gaarisa hadday joogto maxaa ku dhaca Nairobi ama Muqdisho ama maartay Beledweyne iyo Kismaayo hareeraheedaba waa Soomaali dadka Soomaaliyeed macna kala ma sameynayso waxaan nahay dad isla dhashay oo runtii isku qasban waan isku qasbanaa waayo waxay noo isku kay qasbay koow midabka diinta iyo luqadda iyo eeli xigaalo oo anagoo aan cidna qofka kale uusan waxba maartay uusan dheerayn maadaama marka dhalinyarada waliba dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa rabaa in marka aan iraahdo dhalinyaro hadda anagu waan tagnay dhalinyaro idinka iskala waqtiga waxaan qabaa marka DJ Subeer waxa aawadid waa wacyigelin waa heesii haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo haddii sanataradii aad ka soo saartay anigii hooyadii gobolka iyo halkaan iyo in badan oo daawanayso armaanta iyo isu kaaya keentay Abuukar Qaadi adaaba waxba ku dhimanayn marka aduu habeen walbaba sidaas isugu keen marka dambe ayadaa dan isku raacday waxaan kula habeen Hargeysa naga deji habeen Jigjiga nagee habeen bameel habeen garowan ka deganaynaa habeen bay dhaban tagnaa habeen dalka ku tagnaa war dalkan marka labaad ilaahan kugu dhaariyay qabiil muxuu taraa qabiil qofku ma deeqo waa qoys qabiilka dhan oo lagu sheegay reer hebel waa family qoyskeeno kala ah marka nation kan badan oo maartaan isleeyahay wadanka waxa ka maqan wadaniyada ay naga maqan wadaniyadu waa mid dadka barta wax lahaanshiyaha wadanka wadaniyada lagu bartaa marka burburkii 30 sano ayaan dadka loo qorin carruurta Soomaaliyeed ee qurbaha joogta ee qaarkood xabsiyada ka soo weynayaan waxaan arkay kilib hadda gabar UK joogta ay soo dirtay leedahay Saudi Arabia dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka xiran dabcan safiira la diraya magaala loo diraya xaaskiisii carruurtu geysanaya dagala meeshaas uu fadhiyaa waa safiirka Soomaaliya u jooga wadan hebel dan uu enjoy gareynaya waxa macnaha ma sameynayso laakiin waxa la rabaa in qofkaas uu noqdo inuu dareemo wadanka uu joogo Soomaaliya meel qof Soomaali adduunka aan maanta u sii joogin male waa inuu dareemo asaga wadanka ka ah asaas safiir u ah asaga siyaasadda u maqan waxa la rabaa qof walba oo magaca Soomaaliyeed sheegto hadduu u baahdo dukumeenti iyo hadduu ciqaaban yahay labadaba asaal rabaa inuu doodo waayo madaxweynuhu warqadda markuu u saxiixay ogolaashiyaha la siiyay waxa tahay safiir wadan hebel iska hurdoo saxa ma ah waxaan arkayay gabadhii la geeyay Zimbabwe miyaxaawo oo wasiiradda soo ahayd caafimaadka ayadoo dhalinyaradii iyo ganacsatadii iyo magaalada la shirayso marka waxa soo jeedin lahaa halkii aan xogaa yar weecde xogaa yar aan gashanaya oo ah 30% halkii wasad markaan ku doodayno gabdhaha iyo dhalinyarada wax loo dhiibo odayaasha xogaa laga joojiyo mama Jawaar marqab waxaan kula hooyo I love you waan aad waan kaga mahad celiyaa soo dhaweynta iyo garabka ay siisay everytime aan Muqdisho imaado thank you love you Eid Mubarak Eid Mubarak thank you I love you ما شاء الله salaam mama dhammaantiin ما شاء الله